بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبي وناكسن كلنتي وناكسن قياري وسلطان كتيفي وركع عاو وحا ugu waaweyn magaalada Baydhabo gobolka Bay oo lagu soo bandhigay munaasabad rasmiya oo Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya fariimaha halkaasi laga diray wasiirada weerarka ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka warbixin ku saabsan munaasabada Baydhabo iyo sidoo kale musharaxiinta dhabteel ka qayb galaya doorashada Koonfur Galbeed baqdin xoogan oo wajahaya Aadan Madoobe Shariif Xasan ayaa ku jira xubnaha tartamaya aadanna uu dalbanaya tartanka doorashada in laga reebo waan ku faahfaahinaya ciidankii ugu xooganaa ee Puntland ka soo goosto ku sii qulqulaya xiriyaha ciidanka dawladda dhexe Soomaaliya arrintan maxay uga dhigantaa madaxweyne Siciid Dani oo dhawaan ku hanjabay inuu cagta mari doono ciidamada taabacsan dawladda dhexe Soomaaliya gaalkacyo waxa ka gudbay gaadiid ay ku buufseen astaanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo u gudba galbeedka gobolka Mudug halkee laga keenay gaadiidkan dagaalka Iiraan iyo Mareykanka oo mar kale qarka u saaran inuu qarxo dawladda Iiraan oo heegan gelisay awoodeeda military ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Trump warbixinta ku saabsan qodobkaas ayaan eegay afartan qodob ayaan ku soo koobaya muuqaalkan kulanti wanaagsan habeen wanaagsan waa Jimco 1 bisha May 2026 aqyaaray soo dhawaad Baydhabo ku bilaabaya magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waxa caawa markaasi ka dhacay munaasabad weyn oo lagu sheegay inuu Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo ku soo bandhigayo musharaxnimadiisa maamulka Koonfur Galbeed State of Somalia iyadoo sidoo kale halkaas ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dhexe Soomaaliya kuwaas oo ka hadlay munaasabad wasiirro ka tirsan xukuumadda siyaasiyiin kala duwan xildhibaano baarlamaan iyo dhinacyo ayaa ka qayb galay waxaana imika aadan oo ku dhawaaqay inuu ka shaqeyn doono danaha Koonfur Galbeed kadib markii loo xushay inuu yahay wakiilka JSB ee dawladda dhexe Soomaaliya iyo doorashada Baydhabo taasoo lagu sheegay in aadan markaan uu ku doonayo isbedelo ee ku saabsan ajandihiisa siyaasad Aadan Madoobe weli ma iska casilin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya qodobkaas ayaana lagu tilmaamay qodob marnaba marka la eego aan suurtagal ka dhigayn inay dhacaan isbedelo marka loo eego xogta rasmiga ah dhammaan xogaha maanta munaasabada waxa ka hadlay wasiirro qayb ka ah wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda jaamac iyo sidoo kale wasiirro kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya waxaanay halkaas ku soo bandhigeen mowqifkooda iyagoo qaarkood ku dhawaaqay inay ka soo horjeedaan aragtida mucaaradad Baydhabo ayaa la circiraysa markaan wafuud kala duwan oo caawa ku hoyanaya iyadoo xogtu sheegayso 10ka bishan May 9 maalmood kadib in Baydhabo laga qabto doorashooyin lagu sheegay qof iyo cod laakiin la ogyahay natiijadaasi cidda ku soo bixaysa marka loo eego fariimaha ka imaanaya Baydhabo wararka rasmiga ah ee warbaahinta suldaanka TV helayso ayaa sidoo kale muujinaya inay jiraan isbedelo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo kuwa ciidan oo dawladda dhexe Soomaaliya halkaasi ka wado qorshaha ayaa lagu sheegay mid markaasi looga hortagayo aragtida mucaaradada Cabdicasiis Laftagareen ciidankiisa laga yaabo in gudaha ay ka carqaladeeyaan maamulka Baydhabo taasoo muujinaysa inay jirto digniin iyo sidoo kale filasho ku saabsan ka hortaga qorshaha loo arko inay caqabad ku noqon karaan doorashooyinkaasi si guud dawladda dhexe Soomaaliya ayaa dalka gelisay olo doorasho si gaar ah maamulada Galmudug Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed oo muddo markaas dhowr sano xayndaabka filla Soomaaliya ka galuumaysanayay taasoo loo arko suurtagalnimada sanadka 2026 inay curo doonaan hogaamiyaal cusub hogaamiyaasha hore maamuladaasi ee xukumayana ay markaasi meesha ka baxaan guud ahaan inkastoo aan la ogeyn xubnaha soo laaba kara iyo xubnaha
aan soo laabo karin diban ka faahfaahin doona warkaas baydhabo ayaana u muuqanaysa inay jiraan loolan iyo olole xooga dhanka kale aynu ka eegna marka waa kuwa musharaxiinta ka baqaya Aadan Madoobe ee saameynta kule ololaha doorashada baydhabo inkastoo musharaxiin fara badan ay jiraan haddana laba musharax oo lagu xamarayo xeyndaabka filla Soomaaliya ayaa jira inaysan ka fogeyn mid waa madaxweynihii ugu horeeyay Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan midna waa wiilka uu dhalay Professor Maxamed Cismaan Jawaari labadaasi musharax ayaa la sheegay inay ka mid yihiin musharaxiinta ee baqdinta uu ka muujinayo ninka lagu magacaabo Aadan Madoobe waxaana suurtagal ah in musharaxiinta qaar tartanka doorashada laga reebo guud ahaan saysan uga qayb galin taasoo loo arko suurtagalnimada qodob cusub marka loo eego xogta imika waa hagaag dhinaca Puntland ayaa eegayna Puntland ayaa markaan wajahaysa kala jab ciidan iyo kala qaybsanaan xoogan taasoo muujinaysa inay jiraan isbedel ku saabsan ciidanka ka soo goosanaya dhinaca Puntland ee ku dhawaaqaya inay ku biireen ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa la sheegay inay galeen koloyo gaadiid ciidan oo si weyn loo abaabulay kuwaas oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan cutubyo la rumaysan yahay inay ku xiran yihiin xerada 12aad ee ku taala duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug dhinacyo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa xaqiijiyay in kolonyadaasi ay si toos ah u gaareen bartamaha magaalada Gaalkacyo taasoo ka duwan dhaqdhaqaaqyadii hore ciidamada dawladda dhexe Soomaaliya iyo gaadiidka ay ku buufsan tahay astaanta ciidanka xoogga ayaa lagu arkay duleedka dhinaca galbeedka magaalada Gaalkacyo iyagoo u sii gudbaya dhaqdhaqaaqyadan cusub ayaa abuuray hadalhayn xoogan oo ku saabsan ujeedada ciidamada cidda sida dhabta ah ay u matalaan iyo sidoo kale halka laga soo diray muddooyinkii u dambeeyay waxaa jiray warar sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dawladda dhexe Soomaaliya ay kordhiyeen joogitaankooda military ee gobolka Mudug dhinacyada maamulka Puntland arrintan ayaana imaanaysa iyadoo maanta ciidamo xoogan oo galbeedka gobolka Mudug ku sugan ay ku dhawaaqeen inay ka soo goosteen dhinaca Puntland kuna soo biireen dhinaca dawladda dhexe Soomaaliya dhinacyadan ayaana lagu sheegay inay timid iyadoo horay ciidamo hubaysan loogu soo bandhigay duleedka magaalada Gaalkacyo gaadiidka gudba ayaa lagu sheegay inaysan ciidankaasi ka mid ahayn ila abna ayaa xaqiijinaya dhowr talis oo ku yaala ee galbeedka Gaalkacyo dhawaan in lagu arkay ciidamo si toos ah ula shaqeynaya dawladda dhexe Soomaaliya ciidamada soo galay bartamaha magaalada ayaana la sheegay inay markaasi nidaamsan yihiin kana yacni qalabaysan yihiin gaadiidka wataana ay ku buufsan tahay astaan